لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان. بسم الله، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله والشكر لك والشكر الحمد لله منا ولك شكرا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا. اللهم يا ميسر كل عسير يا جبار كل يسير، اللهم يا جبار كل يسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. أما بعد، ما أنت إن شاء الله تعالى ربنا هدو إلهي رالك النقضة قصة ضبعة ونرش بنا آدمك كسليسان إيه ظروفتا كلا دوان قفك بنا آدمك أنتو نوليها ولكم معي. waxaa ogtihiin qofka marka uu nool yahay wuxuu la kulmaa mas'uuliyooyin nolosha ku adkaata, waxyaabo badan oo ciriiri ah, iyo ciriirigaas waxyaabaha uu cilaajka u ah ama daawada u ah in qofka uu rumaysan yahay markay musiibo ku dhacdo in ay shar u tahay, taasna ay qalad tahay. maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. marka qisadan waa qiso kooban, waxayna ku salaysan tahay isbedelada qofka ku dhacayo in ay tahay wax isaga khayr u ah, aysan ahayn shay isaga xumaan u ah. qisada nin boqor ayaa hadda kor waxa la yiri wuxuu lahaa nin la taliya u gaar ah oo uu aad u jeclaan jiray mar walba, oo isaga uu meel walba u raaci jiray. ninkii boqorka ah saaxiibkiis mar walba markii arin ay ku dhacdo wuxuu dhihi jiray warniyaha waxa ku dhacay la'alla fiha khayr, waxa laga yaabaa in ay wanaag ku tahay, wanaagaas isaga inay waxa ku dhacay inay wanaag ay ku tahay laga yaabaa. boqorka marka uu la yaabi jiray ninkaas dabeecadiisa, maalmaha ka mid ah asoo boqorkii faras dheeraynaya ayuu raacay, faraskii ayuu ka dhacay, far ayaa ka go'day boqorkii. ninkii saaxiibkii oo la taliyaha ahaa wuxuu ku yiri warniyahow waxa ku dhacay la'alla fiha khayr, inay khayr ku tahay ayaa dhici karta. boqor waa taqaanaa nin boqor oo jabbaar ah oo adag oo dhibaato ku dhacday oo xanuunsanayo oo loogu jawaabay war waxani waa wax ku fiican oo Ilaahay xaqiisa kaaga fiican. markaas uu yiri anima igu jeesjeesis atuuzi ubi ana boqorka ayaad igu ciyaaraysaa sooma, xabsi ayaan ku dhigayaa. dhibaato igu dhacday dhiigayga ayaa socdo, markaas ay leedahay khayr ku tahay, maxaa khayrka ay sheegaysaa? wuxuu yiri hal xirnika. marka wala askarti ayaa qabatay, jaabadii ayaa lagu dhaji, waa la sii wada xabsiga ayaa loo sii wadaa. markaas wadan wuxuu yiri la'alla fiha khayr, xabsiga la ii wadaba inay khayr ii tahay ayaa dhici karta. boqorka dabeecad ayuu lahaa leeyir, wuxuu aadi jiray meelaha dooga iyo ugaar ayuu aadi jiray, xoolaha iyo xayawaanaadka iyo iska fiirsan jiray. maalin dambe xayawaan ayaa cajabay boqorka, xayawaankii ayuu wuxuu isku dayay in uu soo qabto ama uu leesho. xayawaankii uu ka dheereeyay uu raacdaystay, marka xayawaankiisa uu ciirsanay boqorkii wuxuu galay marka meeshii boqortooyadiisa ay ku ekeed meel ka baxsan, xero kale ayuu galay. xeradaas ciidan ayaa qabtay, boqortooyo kale ayuu u galay, marka isagana waa boqor. warka waa la qabtay, waxa la yiri ma sha Allah nin weyn oo qurux badan ay heleen. marka dadka qabtay waa dad cawaan oo gaala ah, asnaam ayay caabudaan. waxay yireen maanta waxaan ka walwalsanaynba ninka aan sanamka u qali lahayn in nin aan naqaano u noqdo, oo dadkii aan naqaalay inaan qalno wayna dhiwaysay oo sanamkii Ilaahay aan u qalno, maadaama aad nin qariib ah tahay oo aad u cusub tahay way noo sahlan tahay in sanamkii aan ku gooracno ayaa rabnaa. ninka waxa leeyahay maadaama Ilaahay loo qalaayo xabsi hala dhigo, raashinkan ugu fiican hala siiyo, inta la siiyaa wax walba la siiyaa, waa la qaaraya, waxa loo qaaraya in sanamkaas loo gowraco. markaas waxa dhacday ninka cuntooyin badan markii la siiyay muddo kadib waxa la yiri ninka maadaama Ilaahay loo qalaayo intaan loo qalin sanamka waa ayaga waxay caabisan yihiin, waa macna sanamkoodaas ay ayaga Ilaahay u rumaysan yihiin, waxay leeyihiin sanamkii ayaa loo qalaayo intaan loo qalina bal ninka xaaladiisa caafimaad hala jeegaray. sanamkaas ayaga Ilaahay ka dhigteen waxay leeyihiin maadaama sanam loo qalaayo Ilaahay ayaga say u rumaysan yihiin, waxay leeyihiin
خوف أدي أي نسخان أي كجرت خوف كاني وما قلنا إنسان كاس لو خلق خوف كي جاء على مرسي حالة إسعاف مات ولا باري جيل كي سؤالنا على فيري مركي على فيري وحال أركي إن أما نسخان إن أي كجرت نكا مركي على أركي جيل كي سؤالنا على فيري فرير أيان قانت نكى بخر حالي ما دام نكى على فرق أي قانتها سنمك وما قلنا خوف أي نسخان كجرت سيدي أيان لوسودي بخر كي وفرح سن أيان xornimadiisii dib u helay dil toogasho ayuu ka badbaaday markaas ayaa wuxuu u soo laabtay saaxiibkiis sida uu soo socday xabsiga ayuu tagay meel kale ma uusan tagin saaxiibkiis uu tagay war saaxiibo war wixii aad sheegtay maanta wax la yaab leh ay noqdeen waaba arkay calaamadii aniga khayrkii ay tahay waaba arkay adigana maxaa khayrkii ay ku tahay xabsiga farta aniga ay u gooday khayr ayaa ku sheegtay waana sax oo waan arkay waxaan ka rabaa khayrka adiga aad xabsiga aad ku heshay gadaashay ina ii sheeg markaas wuxuu ku yiri war aniga adiga soo aniga mustashaarkaadii soo mii la taliyaha gaarka soo mii meel walbo aad adiga u baxayso soo aniga ima wadi jirin ha aniga hadii maanta aan ku raaci lahaa labadeena waa nala baari lahaa qof inta la adiga ayaa noqon lahaa waa lagu sii deylaa kan la gowracay ayaa noqon lahaa marka aniga ayaa noqon lahaa marka sida darteed aniga xabsiga ayaa wuxuu ii noqdayba khayr iyo wanaag marka qisada iyada ah runtii waxay muujinaysaa waxyaabaha ku dhacaayo مثلا waa shaqeyn jirtay shaqadii laga soo raacday khayr inay ku tahay ayaa laga yaabaa ugu shaqo ka fiican inay hesho ya macnaa waxyaabaha ku dhacaayo adoo caafimaad qaba ayaa xanuunsatay jirada laftirkeeda ayaa inay khayr ku tahay laga yaabo maxaa yeelay jirada qofku uu jiranayo waa dambi dhaaf ilaahay baa kugu dambi dhaafaya marka insha Allah taala intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qisadeena hada billahi tawfiq لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان